taliyaha guud ee ciidanka asluubta Soomaaliland Maxamed Cismaan Ibraahim oo muddooyinkii ugu dambeeyay safar ku marayay gobolada bariga Soomaaliland ayaa saaka soo gaaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana taliyuhu kormeer ku soo maray xabsiga weyn ee magaalada Burco isagoona salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka asluubta gobolka Togdheer ali waxaan kugu diyaara cutub ka tirsan ciidanka asluubta jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan xabsiga Burco ee gobolka Togdheer ku soo dhaw salaan sharaftaasi kadib waxa taliyaha halkaasi hadallo xog waran iyo soo dhaweyn ah uga soo jeediyay taliyaha ciidanka asluubta gobolka Togdheer taliyaha guud ee ciidanka asluubta jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Cismaan Ibraahim sareeyo guuto waxa kulli meesha yaala inaga marti leeyahay yahay ciidan ahaan asluub ahaan xabsi ahaan oo taliyaha ciidanka iyo hoggaanka la socday iyo ay marti u yihiin iyo waftidiisuba waxaan leenahay taliya soo dhawow taliyaha guud ee ciidanka asluubta Soomaaliland ayaa isagu ka xog waramay safarkiisa shaqo uu ku marayay gobolada bariga Soomaaliland waxaan kormeer ku marayay gobolada bari ee Burco ugu sokayso Sanaag iyo Sool si aan u dardargelino ciidamadii asluubta eegno sida waxbarashadooda iyo habkooda habdhaqankooda dishibliinkooda sida sharciyada oofiyaan ayaan u soconay waxa halkan jirtay cabashooyin xaggii darajooyinka ahaa cabashooyinka intii qoratay ayay wixii ilaahay uga alfay qaar xitaa laga waayay way jirtay dadkii cabashooyinka qortay oo saraakiil bay ahaayeen laakiin wixii cabashada qortay wixii alla uga qoray waa u soo baxday Maxamed Farax Bile telefishinka caalamiga Kalsan magaalada Burco.